حنا وذاكتي محاكو داعي دولة بانو ناي صدن سنانو سوچرني قوة بانو لينهاي اعتراف بانو دوننا محاكا دنبيه فشل باكا دنبيه نيكي دوف كويمي بيجيردو ديبايسا برنامجka waxaad ku maqli doontaan dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood isla markaa jabkii ka raacay jabhadda dhashay shabaab ee SNM waxaan kaloo barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa tooshkana la dul istaagi doonaa du'aalaha awood la idmo daawici meedadkii jabkii iyo dhibaatadii ka soo gaadhay jabhaddaas xaq darrada ku socotay magaalada Laascaanood isla markaana ay gaareen heer ay dhaawacoodi qaadan kari waayaan iska badaameedo dhinaca kale barnaamijka waxaanu ku iftiimin doonaa jabhadda argagixisada SNM inta meelood ay ka soo gashay magaalada Laascaanood isla waqti xaadirkana meesha ay ku sugan yihiin magacaygu waa Hilaacsoon waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo intaana u guuda galin barnaamijkayga waxaan leeyahay qof kasta oo uu ku jiro dhiig daraawiisheed ama dhiig Soomaaliyeed barta uu joogo inuu halgankiisa ka galo kii dalkii jooga inuu dalka ka galo uu qorigiisa dhinaca ka qaato kii qurbaha joogay inuu maalkiisa kaga qayb qaato kii hadli karo inaad hadalkaaga kaga qayb qaadato aan ku horeeyo jabhadda argagixisada SNM ama hooyadii dhashay shabaab oo saaka awood u yeelan waayay inay dagaalamaan iska daaye inay meedadkoodii iyo dhaawacoodii gurtaan bal fiidowga dhigla yara daawada أني دورة ورواكون لمنك وريارة واكون عليك السماء اللي أبوتها سماركتين ما غلطان راح يدك استاغيين راح اسكو سويريين راح كاسوا ميدكا تس عقلك انت يا هون حما كسفرة حما كسفرة امسا دشين امسا سديد بيا لهالكا والله ده تدبا غارين ولا وكا ديق وكا sadaragtaan ba waa qayb kamid ah dhaawacyadii ay ka carareen iyo meedadkii ay ka carareen waana jabkii ugu horeeyay ka soo gaaray magaalada Laascaanood iyadoo aan waliba dagaal dhicin wali cidi isma gaarin waxa igu ballan ah oo ay idin ballan qaadi doonaa Idoorow wali fursad baad haystaan haddii si laaban weydaan oo aad tallaabo hore u soo qaadaan dambe waxaan dumar ahaan inay idinka hari doonin qodobkayga labaad waxaan ku iftiimin doonaa saddexda jiho ay magaalada ka soo galeen jihada waa jihada qarsi iyo Goojacde iyo dhinaca buurta sayidka ee bari xigta koonfur xigta saddexda jiho ay ka soo galeen laakiinse waqti xaadirkan mid ay kaga sugan yihiin ma jirto way jirtaa magaalada banaankeeda inay madaafiic ka soo ridayaan ee shacabka ku waxyeeleynayaan jooga magaalada Laascaanood waxaan kaloo barnaamijkeena ku iftiimin doonaa oo aan idin tusi doonaa iyadoo aanan awoodin fiidiyooyada qaar in aan idinla wadaago maxaa yeelay shuruucda YouTube-ka lama ogola fiidiyooyada qaar in la soo bandhigo balse waxaan idinla wadaagi doonaa insha Allah bal horta ila yaraarka dhaawacoodii iyo maydkoodii waa kuwa halkaa maraya waaraado carradaa ka badan iyo ambalaasyo xagga Goojacday ka soo laabtay sug iqab waa kuwa ayay daba istaag ورمين هذا بدون عيدا ما لحظة هالكاسي مريان وكوا ورادداس داوع ذي السودان يا أمبلاس تاسي وكوا لان هالكان كموليا
وكون هلقا كفورا يا وكون هونada dhaawacoodu weeye waka waraadka kalena koocha caday ka soo baxeen hadeer waxa xaafida waa meedkoodii iyo dhaawacoodii la kala guri waayay horayso kajo waa kuwa dhaawacoodii iyo meedkoodii سكسك هلقا والقلقة هوستا نوقلين وكا وراكا وحاس نوقي يداوع وكذا وكوا كنترول قلبات كي كفولا يا وكا صوغ شيء محا إذي كالراعي هو ني عند وذاقي soo gasheen maxaa idinka raacay wali la isma gaarin xabadu si toos ah uma bilaaban horena waa idinku sheegay doorow waxaan dumar hayn idinka harimaayaan haba yaraatee waad aragtaan iyagoo dhaawacoodii daldalanaya waraada saaranaya meedkoodii waraada saaranaya qayb ka mid ahna uga dhex tegay magaalada gudahooda iyo hubkoodii iyo gawaaridoodii intaba waxaan kaloo aankan uga mahad celinayaa mahad cambaashe uu tolkii garab istaagay guul iyo gobonimo ayaan ku leeyahay mahad cambaashe channelkan aad naga daawanaysaan waa Hillacsool waxaanu idiin soo gudbin doonaa xaalad kasta oo isla markaa ka socota magaalada Laascaanood oo xaqiiqda ku qotonsan si aad barnaamijyada u daawato nala saaxiib calaamada subscribe ka taabo gambaleelkana u furo si aad ula socoto xaalad kasta oo emergency oo ka dhacaysa gobolada SSC oo xaqiiqda ku qotoma waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo